wararka naga soo gaadhaya deegaanada Deefow iyo Kabxanley ee dhaca dhinaca waqooyi magaalada Beledweyne ayaa sheegay in dagaaladaasi maalmihii la soo dhaafay ka dhacay deegaanadaasi ay u dhaxeeyeen laba maleeshiyo beeleed oo ka soo kala jeeda beelaha Dir iyo Xawaadle. dagaalkan u dhaxeeya labada maleeshiyo beeleed ayaa salka ku haya dilo lala xiriiriyay aanooyin qabiil oo toddobaadkii la soo dhaafay ka dhacay deegaanka Kabxanley iyo Deefow, kaasoo loo geystay dad beeraley ahaa xilli ay ku guda jireen tabcashada beerahooda. dagaalada ka dhacay deegaanka Deefow iyo Kabxanley oo qiyaastii Beledweyne kaga beegan dhinaca waqooyi ilaa 35 kiilomitir ayaa inta la xaqiijiyay waxaa ku geeriyooday 6 ruux oo isugu jira dhinacyadii ku dagaalamay deegaanadaasi iyo dhaawac in ka badan 10 ruux. deegaanada uu dagaalku ka dhacay waxaa maalmihii la soo dhaafay laga dareemayay dhaqdhaqaaqyo iyo abaabul dagaal iyo odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda labada beelood oo waday waawaan looga hortegayay dagaaladaas dhacay. nasiib darase way ku guuldareysteen in la baajiyo dagaalka u dhaxeeya beelaha Dir iyo Xawaadle. dhinaca kale ciidamada ku baxay dagaal beeleedka ka socda deegaanka Kabxanley ayaa muddo dhowr saacadood ah waxaa magaalada bartamaheeda banaanbaxyo xoogan kala soo hortegay boqolaal shacab oo diidanaa ciidamadani inay aadaan dhanka deegaanka Kabxanley. qaar ka mida banaanbaxayaasha oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ciidamadani aysan ujeedkoodu ahayn inay istaajiyaan dagaalka maadaama ku dhowaad 10 maalmood maleeshiyaadka dagaalamaya ay isku horfadhiyeen deegaanka Kabxanley. ciidamana xilligaas aysan samayn wax tallaabo ah oo ay uga hortegayaan inuu dhaco dagaalka haatan socda. deegaanka Kabxanley oo 35 kiilomitir dhinaca waqooyi magaalada Beledweyne kaga beegan waxaa labadii maalmood in la soo dhaafay ka jiray dagaalo toos ah oo u dhaxeeyay maleeshiyaadka labada beelood, waxaana inta la xaqiijiyay dagaaladaas ku dhintay in ka badan 10 ruux oo ah dhinacyada dagaalamay. khasaaraha dhimashada marka laga soo tago waxaa jira in xalay deegaanka Kabxanley lagu gubay guryo iyo beero aad u fara badan, inkastoo ay maanta xaaladu ahayd mid degan oo aan wax dagaal ah dhicin deegaankaas. sidoo kale gudoomiyaha guud ee beelaha Dir Suldaan Cabdiraxmaan Jaamac Dhawal oo muuqbaahiyaha Saab TV kula hadlay xafiiska beesha ee magaalada Hargeysa ayaa baaq nabadeed u diray beelaha ku dagaalamaya deegaanada Kabxanley iyo Deefow ee gobolka Hiiraan. suldaanka oo ku hadlayay afka guud ee beelaha Dir ayaa si gaar ah baaq ugu diray ugaaska Xawaadle, ugaas Yuusuf, ugaas Xasan, ugaas Khaliif, wuxuuna ka codsaday inuu xil iska saaro daminta colaadda maadaama uu isagu ku sugan yahay gobolka uu dhibku ka dhacay. ugu dambeyntii mas-uuliyiinta kale ee ka hadashay dagaalada Xawaadle iyo Dir ee ka dhacay deegaanada Kabxanley iyo Deefow waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo ka hadlay dagaalka ka socda deegaanka Kabxanley ayaa ku baaqay in si degdeg ah u joojiyaan beelaha walaalaha ah ee deegaankaas ku dagaalamaya. madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa dhankiisa ku baaqay in dagaalka ka socda deegaanka Kabxanley iyo Deefow ee u dhaxeeya labada beelood oo halkaas wada dega in si degdeg ah u joojiyaan dagaalka. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Jenaraal Mukhtaar Xuseen Afrax ayaa waxa uu baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya deegaanka Kabxanley ee gobolka Hiiraan. baaqyada kala duwan ee ka soo baxay madaxda dowladda iyo maamulka Hirshabelle ayaa imanaya xili shalay dagaal culus uu ka dhacay deegaanka Kabxanley ee gobolka Hiiraan kaasoo daba socday weerar gaadmo ah oo ay maleeshiyaad ka soo jeeda beesha Direed ku dileen toddobaadkii la soo dhaafay dad beeraley ahaa oo ku sugnaa deegaanka Kabxanley. Khaliif Raage, gobolka Hiiraan, idaacadda Dhagmaal.